qodobada aan idin hayo oo warkeena aad ku maqlaysaanna waxaa ka mid ah hogaamiyaha Xamaas Khalid Mash'al oo maanta markaasi ka hadlay duqeymaha iyo weerarada gumaystaha Israa'iil ay ka geysanayaan Gaza iyo guddiga haatan la doonayay in la soo magacaabo madaxda qaar ee wadamada Carbeed iyo dalalka reer galbeedka ay sheegeen in ay maamuli doonaan marinka Gaza ee Falastiin iyo sidoo kale xasuuqa iyo dambiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha oo weli gumaystaha Israa'iil ay ka geysanayaan marinka Gaza ee Falastiin xilligan oo weliba Yuhuudda ay si joogto ah ugu xadgudbayaan heshiiska xabajoojinta ee marinka Gaza ee Falastiin iyo sidoo kale waxaad maqlaysaan ururka midowga Yurub oo maanta markaasi dalbaday in laga shaqeeyo sidii gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah loo gaarsiin lahaa shacabka Gaza iyo sidii gumaystaha Yuhuudda loogu hor istaagi lahaa dambiyada dagaal dulmiga iyo falalka argagixisada ee Yuhuudda ay ka geysanayaan qaybo badan oo ka mid ah marinka Gaza ee Falastiin iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda dalkaasi Turkiga Hakan Fidan oo isna markaasi hadallo kulul u soo jeediyay dowladda midigta fog ee Netanyahu uu hogaaminayo isla markaana dalbaday in Israa'iil laga hor istaago xadgudubyada dilalka dulmiga iyo falalka ka dhanka heshiiska xabajoojinta oo ay ka wadaan marinka Gaza ee Falastiin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idin hayaa oo warkeena aad ku maqlaysaan daqiiqadaha nagu soo aadan haddii aad nagu cusub tahay ha hilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaallo caynkan oo aad u xiiso badan aad dalkan uga bogatid waxaan ku wareynayaa hogaamiyaha Xamaas Khalid Mash'al ayaa goor sii horeysay waxa uu isagu markaasi sheegay in gumaystaha Yuhuudda weli ay gaajaysiin go'doon dilal dulmi iyo dambiyo dagaal ay ku hayaan shacabka Falastiiniinta ee Gaza markaasi lagu gumaadayo Khalid Mash'al ayaa sidoo kale sheegay in gumaystaha Yuhuudda ay weli diidan yihiin in ay furaan xuduudaha marinka Gaza ee Falastiin ayna ka shaqeeyaan sidii gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah loo gaarsiin lahaa shacabka Falastiiniinta ee Gaza markaasi lagu gumaadayo hogaamiyahan ayaa sidoo kale markaasi isagu sheegay in ay ka soo horjeedaan isla markaana ay diidan yihiin in guddi khaas ah oo caalami ah loo dhiibo talada iyo maamulka marinka Gaza ee Falastiin waxaana uu sheegay in shacabka Falastiiniinta ay yihiin kuwa ku habboon in ay ismaamulaan dhulkoodana ay markaasi ka taliyaan Khalid Mash'al ayaa fariin culus u diray Israa'iil iyo wadamada reer galbeedka iyo dalalka Carbeed qaar ka mid ah kuwaasi oo haatan qorsheynaya ka hor dhamaadka sanadkan aynu ku guda jirno in guddi khaas ah oo gudoomiye uu ka yahay Donald Trump 12 madaxweyne oo wadamada reer galbeedka iyo dalalka Carbeedna ka soo jeedo ay ku midaysan yihiin in la soo asaaso kuwaasi oo la sheegay inay ka talin doonaan isla markaana ay maamuli doonaan marinka Gaza ee Falastiin dhanka kale hay'adda Amnesty International ayaa goor sii horeysay waxa ay markaasi sheegtay in gumaystaha Yuhuudda ay si joogto ah ugu xadgudbayaan heshiiska xabajoojinta ee marinka Gaza ee Falastiin meesha caalamka ay sidoo kale ku eedeeyeen in ilaa ay xilligan ay ku adkaatay in Israa'iil ay kala xisaabtamaan dambiyadan dagaal burburkan xasuuqan iyo xadgudubyadan ka dhanka heshiiska xabajoojinta ee marinka Gaza ee Falastiin oo Yuhuudda si joogto ah ay markaasi u geysanayaan hay'addan ayaa sidoo kale sheegtay in kiisaska macluusha ee laga soo tabanayay marinka Gaza ee Falastiin in ay si aad markaasi u sii bateen xilligan oo weliba 100,000 oo caruur ah oo ku nool gudaha Gaza ay wajahayaan xaalado culus ayna qarku u saaran yihiin in gaajo iyo macluul ay ugu dhintaan halkaasi hay'adda Amnesty International ayaa sidoo kale markaasi ku hanjabtay isla markaana sheegtay in kiisas kale oo cusub oo ka dhan ah gumaystaha Israa'iil in ay u gudbin doonaan maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC-da isla markaana Yuhuudda ay dacweyni doonaan maalmaha mise isbuucyada nagu soo aadan dhanka kale ergeyga gaarka ah ee ururka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa maanta waxa uu isagu markaasi sheegay in wax laga xumaaday ay tahay in gumaystaha Yuhuudda laga aqbalo in si joogto ah ay ugu xadgudbaan heshiiska xabajoojinta ee marinka Gaza ee Falastiin isla markaana dambiyada dagaal oo weli ay ka geysanayaan Gaza aanan lagala xisaabtamin waxaa sidoo kale ninkan uu sheegay in haatan ay gumaystaha Yuhuudda kala hadlayaan sidii gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah loo gaarsiin lahaa meel kasta oo ka mid ah ee marinka Gaza ee Falastiin xilligan oo weliba shacabka Falastiiniinta ay wajahayaan gaajo iyo macluul aad u daran tana ayaa sidoo kale ku soo aadaysa xilli wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda waddankaasi Spain
uu maanta isagu markaasi sheegay in walaac xoog leh uu ka qabo rabshadaha dilalka afduubka iyo barakicinta ciidamada Israa'iil iyo Israa'iiliinta xagjirka ee dhulka Falastiin markaasi lagu degaameeyay ay ka wadaan dhulka la haysta ee danta galbeed. waxaa sidoo kale uu sheegay in wadamada qaaradda Yurub ay ka soo horjeedaan isla markaana aysan aqoonsan doonin qorshe kasta oo gumaystaha Yuhuudda ay ku doonayaan in Falastiiniinta ay uga saaraan dhulkooda iyo guryahooda isla markaana ay kula wareegaan deegaanadooda. waxaa sidoo kale wasiirkan uu u soo jeediyay gumaystaha Israa'iil in si degdeg ah ay ku joojiyaan deegaameynta sharci darrada ah oo ay wadaan ee xadgudubka ku ah sharciyada caalamiga ah. waxaana uu ka dalbaday sidoo kale wadamada kale ee qaaradda Yurub in go'aan cad ay ka qaataan xadgudubyadan iyo weeraradan gumaystaha Israa'iil ay ka wadaan dhulka la haysta ee danta galbeed. dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda waddankaasi Turkiga Hakan Fidan ayaa maanta isagu markaasi sheegeen Israa'iil xadgudubyo ka dhan ah heshiiska xabad joojinta ee marinka Gaza ee Falastiin in ay ka geysanayaan qaybo badan oo ka mid ah marinka Gaza, loona baahan yahay in loo midoobo sidii Yuhuudda falalka caynkan loogala xisaabtami lahaa. Hakan Fidan ayaa markaasi sheegeen wax laga xumaado ay tahay in caalamka haatan ay dusha ka daawanayaan Israa'iil oo maalin waliba tobaneeyo Falastiiniin markaasi ku dilayo kuna dhaawacayo marinka Gaza ee Falastiin, duqeymo, weeraro iyo sidoo kale falal toogasho ahna ka geysanayo meel kasta oo ka mid ah marinka Gaza ee Falastiin. Hakan Fidan ayaa sidoo kale markaasi sheegay in loo baahan yahay in Israa'iil sidoo kale lagala xisaabtamo xuduudaha marinka Gaza ee Falastiin oo ay diidan yihiin in ay furaan xilligan oo waliba gaajo iyo macluul aad u daran laga soo sheegayo qaybo badan oo ka mid ah marinka Gaza ee Falastiin. wasiirkan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda dalkaasi Turkiga Hakan Fidan ayaa ka dalbaday wadamada Carabta iyo guud ahaan dunida Islaamka in ay u midoobaan sidii taageero xoog leh markaasi loogu fidin lahaa shacabka Falastiiniinta ee Gaza markaasi lagu gumaadayo. dhanka kale madaxweynaha waddankaasi Suuriya Ahmed al-Sharaa ayaa maanta ku eedeeyay gumaystaha Israa'iil in iyaga oo markaasi ka cararayo isla markaana doonaya in caalamka ay hilmaamsiiyaan xasuuqii iyo dambiyadii dagaal ee argagaxa lahaa oo ay ka geysteen marinka Gaza ee Falastiin in haatan ay doonayaan in dab ay ku shidaan waddan kasta oo ka mid ah dalalka gobolka Bariga Dhexe. waxaa Ahmed al-Sharaa uu sidoo kale markaasi sheegay in Suuriya haatan ay wajahayso weeraro culus iyo xadgudubyo uga imaanaya dhanka Israa'iil, waxaana uu ka dalbaday wadamada Carbeed iyo guud ahaan dalalka Islaamka siba Mareykanka iyo wadamada qaaradda Yurub in ay gumaystaha Israa'iil markaasi ka hor istaagaan xadgudubyadan iyo weeraradan ay markaasi geysanayaan. Ahmed al-Sharaa ayaa sidoo kale ka hadlay weerarkii gumaystaha Israa'iil ay markaasi ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Baytujan ee koonfurta waddankaasi Suuriya, halkaasi oo shacab Falastiiniin markaasi lagu xasuuqay. waxaana uu sheegay in tani xilligii la riday dowladdii madaxweyne Bashar al-Assad ee dalkaasi Suuriya in gumaystaha Israa'iil kumanaan duqeymo iyo sidoo kale in ka badan 400 oo weerar oo dhanka dhulka ah in ay ku qaadeen qaybo badan oo ka mid ah koonfurta waddankaasi Suuriya. dhanka kale ciidamada militariga ee gumaystaha Israa'iil ayaa maanta weeraro iyo duqeymo culus waxa ay ka geysteen caasimadaha Jabaaliya iyo Baytulahya ee waqooyiga marinka Gaza ee Falastiin. wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa ayaa markaasi sheegtay in meydadka in ka badan 5 qof oo Falastiiniin ah iyo in ka badan 10 qof oo kale oo markaasi dhaawacyo daran ay soo gaareen in maanta loola cararay isbitaalada waqooyiga marinka Gaza ee Falastiin, halkaasi oo sidoo kale ay kala yihiin daawooyinkii iyo gargaarkii caafimaad oo ay u baahnaayeen. ciidamada militariga ee gumaystaha Israa'iil ayaa haatan si joogto ah markaasi ugu xadgudbaya heshiiska xabad joojinta ee marinka Gaza ee Falastiin, waxaana maalin waliba tobaneeyo qof oo Falastiiniin ah ay markaasi ku dilayaan qaybo badan oo ka mid ah marinka Gaza ee Falastiin. dhanka kale kanaalka 12 ee gumaystaha Israa'iil ayaa maanta si rasmi ah markaasi looga tabiyay in madaxweynaha Yuhuudda Isaac Herzog in haatan uu markaasi qorsheenayo isla markaana uu ka fikirayo sidii uu u aqbali lahaa isla markaana uu u ansixin lahaa codsiga cafiska ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu markaasi u gudbiyay. hay'asha Isaac Herzog ayaa isagu markaasi doonaya in la asaaso guddi khaas ah oo baaritaano ku soo sameyn doono weerarkii 7 Oktoobar Xamaas iyo geesiyaasha Falastiiniinta ay ka geysteen marinka Gaza ee Falastiin,
tani oo Netanyahu uu markaasi diidan yahay isla markaana uu ka soo horjeedo. Netanyahu ayaa markaasi diidan in guddi khaas ah markaasi la asaaso oo baaritaano ku soo sameeyo qaabka ciidamada militariga ee gumaystaha Israa'iil ee fulayada ah looga adkaaday iyo sida markaasi Xamaas iyo geesiyaasha Falastiiniyiinta ah weerar barakeysan Oktoobar 7 ee 2023 ay ugu qaadeen dhulka koonfureed ee la haystay ee Falastiin. waxaana tani uu markaasi u arkaa Netanyahu mid sabab u noqon doonta in lagu helo cadeymo badan isla markaana maxkamadda dib loo soo istaajiyo xukun adagna lagu rido maadaama dawladdiisa ay markaasi ku fashilantay in weerarkii Oktoobar 7 ee sanadkaasi 2023 lagu qaaday dhulka koonfureed ee la haystay ee Falastiin ay markaasi ka hortagto.